والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد وحين كسهل لإني درسي إني كساب سنة رمضان تا استقبال كده قابلات إن رمضان تقابلينه بشا وناكسن قيمها بدن إلهي وحين كبرينا إنه نبطقب إيو عافماد إيو خير إلهي نقو قارسية سبحانه وتعالى أمني إيمان كوي كفا إذا استاء إلهي ودنبي وذا كدافن الله نقدقه اللهم صل على محمد ودرسي أما فردقي سدحات مسافرات تقريبا وحيابها فضلقي إذا وحاكم إذا بشة سين هرب أصوت المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شياطين تا لحرحره بشة وإلهي آذو سلسلة ديو إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين حديث متفق عليه هذه رمضان يماده الباب ذا جنة والله بلقاه كو النار تنوال حرا شياطين تنوال سلسلة ديو روايتك لو waxay tira futihat abwaab ar-rahma albaabada naxariista waa la furaa xilliga isaga ah marka qofka muuminka naftiisu markuu warka maqlo iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam naftiisu waxay aad iyo aad ugu xiisaysaa Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa inay hesho jannada qiimaha badan ilaahay dambigi inuu ku dhaafay ramadaanti wa Allah subhanahu wa ta'ala ورالي كان نقنيو وجندي سوسينيو عذاب كيس كبدبادينيو قفكو انت سؤال فهميه maxaa lay waa waxyaabaha jannada lagu galiyo ramadaanta oo sideeda albaab ee jannada mid kamidaba wuxuu yahay mid loogu talagalay dadka sooma sida xadiiska Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi Sahih al-Bukhari Muslim ku yaalay inna fil jannati baban jannada albaaba ku yaala يقال له الريان ريان لا يراهده الباب كاس النبي يقول يدخل منه الصائمون يوم القيامة وحاكجل يمان انت قيامة دتك الصومة لا يدخل منه أحد غيرهم قفان يقع هين نجلي مايو وحلوران دون أين الصائمون ما يكوي سومي تشري فيقومون مركاسي كعيان لا يدخل منه أحد غيرهم يقعد عن هين نجلي ميسو فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد مركا أي قلاننا إن يقعنا هاي والله صحيح الباب كاكجلي مايو مركا النبي صلى الله وسلم عليه حديث كبخاري صوصاري مسلم وحوت المامي ومن كان من أهل الصيام صون كقفك إهلوها سومي تشري دعي من باب الريان الباب كاس الباب كي عكنان شهي درج الله يراهضو باللوغا ييرا يا آخره أبو بكر الصديق وماشي فديبا وحو يري رسولك إله وآبها يهويدا يبان كوغو فرنا ياي من دعي من تلك الأبواب يعني ليس من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يعني الباب هذا قفك اللوغا ييرا وحدي باتا قفك سيدوشي سماها فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها الباب ذا صودا عد لوغا ييريا ميو جرا النبي يقول صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم ها وأنا رجينا يا أدو إنها تكمل نغطه كوا لوغا ييريو سديد الباب جنده صونك وحا وقاشان كيهي أما إلى رؤية حفظس وكيهي هدي الله إدما ينارته آخر رؤيه waxyaabaha shahawaadka ee naftu jeceshahay ay ka daba dhacdo laakiin danteedu aanay ku jirin duxina ka raacaynin xadiiska Abu Sa'id Abu Musa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa wuxuu nabigaanu la joognay kaleey salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yiri man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj qofkii idin kamide awoodu le inuu guursado ha guursado fa inna waghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji guurka ayaa indhahana u laabid wacan oo qofka haduu guursado
dumarka ajaanibka indhaha la laaci maayo la raacraaci maayo cawradiisa iyo xubinka tarankana guurka ayaa u asturaad badan waman lam yastatic facalayhi bisawm qofka aan guurka awoodin waxaa dushiisa ah oo la gudboon inuu soomo fainahu lahu wijaa'un soonka ayaa dhufaan u noqonaya sida qof maartay markuu gaajoodo qofku haraado shahwadiisa qofku way jabaysaa markaasaa dee hamadu yaraanaysaa baadidoonkii dumarka iyo hanqaltaagoodina meesha uu ka baxayaa iska bukhaari muslim baa wariyey marka xadiisku wuxuu caddaynayaa soontu in ay xitaa qofka adduunyada shahwadiisa jebinayso haddii uu lafihiisa uga baqayo xumaan inuu ku dhaco aakhirana wuxuu ka yahay gaashaan iyo ilaalin naartu ilaahay kaaga xafidaya waatuu nebigu sal alla alay slam xadiidka saxiixa ibnu maajah iyo axmed iyo nasai soo saareen asawmu junnatun min cadaabi illaah soonku wuxuu gaashaan ka yahay ilaahay cadaabkiisa qof adduunyada soomay oo soonkiisa ilaahay aqbalay ilaahay naar geyn maayo subxaanahu wa tacaala riwaayad kale waxay ahay asawmu junnatun min annaar soonku naarta gaashaan buu ka yahay ka ilaalinaya qofka ka junnati axadikum min alqitaali sida gaashaanka qofka idinkaydii ka mida uu fallaadha iyo waranka iyo seefta iyo isaga dhigo saasoo kale ayuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam micnaha marka looga jeeda waxaa weeye qofka haddii uu soonkiisa hagaajiyo adduunyada wixii dunuubta iyo macaasida iyo xumaha iyo waxaana wuu ka xafidayaa oo dee shahwadiisii buu yaraynayaa hamadiisii buu yaraynayaa hungurigii hanqaltaagga xumaantaa ku yaraanaya xubnihiisii buu xafidayaa aakhirana naartuu ka ilaalinaya bal nebigu wuxuuba gaadhsiiyey calayh salaatu wasalaam maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illaahi tacaala ma jiro qof maalin ilaahay dartii u soomaya ama isagoo jihaad ku jira soomaya ama alla dartii u soomaya ilaa baacada allaahu bidalika alyowmi wajhahu can innaar 70 khariifa hadduu jiro ilaahay wejigiisa waa ka fogeeyaa naar 70 sannadood in loo socdo xadiidkaas alimaam muslim raximahullah ayaa soo saaray oo wariyey sidaa awgeed baa xadiisku wuxuu tilmaamayaa hal maalinoo alla dartii aad u soontay in ilaahay naartiisa uu kaaga xijaabayo oo wejigaaga naartu inay aragto ilaahay ka ilaalinaya subxaanahu wa tacaala waxyaabaha marka muhimka waxaa weeye qofka muslimka inuu soonka aad ugu dadaalo siduu ilaahay ajar badan uga heli lahaa abi darda radi allahu tacaala canhu ayaa rasuulku hadal ku yidhi maalin qofka ilaahay dartii maalin u sooma alle subxaanahu wa tacaala qofka alle dartii u soomay iyo isaga qofka iyo naarta dhexdooda hogweyn baa ilaahay ka jeexaa oo dhucirka iyo dhulka inta u dhaxaysa la-eg weligiiba naarta markaa ma soo gaarayo waxaa weeye intaa dhulka weyn ayaa u dhaxeeyo oo ma soo gelayo waana xadiis saxiixa oo saxiixu targhiibba ku yaalla soonta marka la fiiriyo waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee jannada lagu helayo oo wax u dhigmi karaaba aanay jirin xadiidka abi umaama ayaa wuxuu leeyahay qultu yaa rasuula allaahi murnii bicamalin rasuulka ilaahay bal camal aan sameeyo oo ilaahay ugu dhowaado cibaadaha iyo amar qaala calayka bisawmi fainahu laa cidla lahu soonka ogow oo soonka badso wax u dhigmi karaa ma jiro qultu yaa rasuula allaahi murnii bicamalin haddana mar labaad baan ku idhi buu yidhi camal aan sameeyo iyo amar qaala calayka bisawmi fainahu laa mila lahu soonka ogow soon wax la midii ma jiro haddana waxaan ku idhi yaa rasuula allaahi murnii bicamalin rasuulka ilaahayow camal aan sameeyo bal iamar qaala calayka bisawmi fainahu laa mila lahu soonka ogow wax soonka u dhigmi karaa ma jiro abu umaama marka radi allahu tacaala canhu wuxuu ahaa soonta su u badin jiray xaafaddiisa maalintii xitaa haddaanay ramadaan ahayn reerku dabba ma shidan jirin gurigiisaasoo xaaba ka baxayso oo cunto lagu karanayo lama arki jirin inay marti u timaadda mooyaane reerku inta badanba waa soomanaan jireen soonka sunnaha ah ibnu khisaama iyo ibnu xaakim iyo baa soo saaray xadiidku fii saxiix targhiib baa albaanina ku saxiixinaya xudayfata ibnulyamaan baa wuxuu yidhi maalin baan rasuulka sal allahu calayh wasalam anigoo fadhiya ayaan rasuulku sal alla alay wasalam baan laabtayda saa ugu tiiriyey markaasuu rasuulku wuxuu igu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahda khutima lahu biha
الجنة ختم له بها دخل الجنة قفك أنتو لا إله إلا الله يري يسقو كلمة دا كل واقع نفط كبحضي إلهي سبحانه وتعالى جنو قلنيا ومن صام يوما ابتغاء وجه الله قفك مال إلهي درتي أصومي ختم له به صونكي لوغو ختميو يسقو صومن غيريودي دخل الجنة جندو قليا ومن تصدق بصدقة قفك صدقة لبحي ابتغاء وجه الله إلهي درتينا ولبحي ختم له بها صدقة ولبحي لوغو ختمي ومركا دبيت غيريودي دخل الجنة جندو قليا حديث كان أحمد صوصاري هيثمي بزارنا وصوصاري الشيخ الألباني رحمه الله وعليه حديث هو حديث صحيحة في صحيح ترغيب وترهيب التلام جلد كواد بكل شيء سيدا وقد مركا حديث الفادس وحاكم صحيح الترغيب كويا الله يا حذيفة وريا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله قفك إلهي نلشي سأقو ختم وقو جبيو مال سونكي أو صومي ودر إلهي أو صومي عز وجل أدخله الله الجنة إله الجنة وقلني سبحانه وتعالى حديث هو صحيح لغيره الإمام المناوي كتاب كيس فيض القدير كمركو شرحه وحليه وحلوقتش هذا حديث كمعنيسة من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم قفك الله ختم عمره الصوم وتصاله إساقو صومن بولنتايه أو بعد فطره مسمركو أفري كبعد من صومه وكصومنا أبو لنتي دخل الجنة جنة قليا مع السابقين الأولين ويهوري معي قد بون نقونيا يسوى عذاب إلهي صومرين سبحانه وتعالى أنا إلهي عذاب صومرين سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم معلمها كم إذا أيو صحابة الله الله صبحي من أصبح منكم اليوم صائما ورمانت يا واقو إبريا يسوى صوما فقال أبو بكر أنا أبو بكر بايري آنيقا هذا وحوري من أطعم منكم اليوم مسكينا ورمانت يا قف مسكينا وحسيي أو ساك وحصد قيستي فقال أبو بكر أنا أبو بكر بايري آنيقا رسولك إلهي فقال من تبع يوم من تبع منكم اليوم جنازة ورمانت يا راعي جنازة يا مانت راعي قال أبو بكر أنا قاعد جنازة راعي من تبع منكم اليوم يوم الجنازة من عاد منكم اليوم مريضا ورمان تقف بكو حنوسنا يا صوب وغضي قال أبو بكر أنا أبو بكر بايري آنيقا رسولك صلى الله عليه وسلم اجتمعت هذه الخصال قد بدنكم كلمان وليود في رجل إلا دخل الجنة جند قليا قفك قد بدا اسكدر صون يا صدقات يا بوقش قفبك يا جناسة لغا غيب قالوا دي waxa weeyaan jannu qofkaas ilaahay ku siinaya subhanahu wa ta'ala faa'iidooyinka waxa kamida iyo barwaaqada soonta la socota la isugu bishaareynayo soonku wuxuu shafaaca qaadaa qofkii si wanaagsan u soomay ee ilaahay soonkiisa aqbalay uu shafaaca qaadaya qiyaamaha maalinta la qaawaya ee qofku u baahan yahay in la caawiyo weey حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحي رسولك صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صونك إيا قرآنك قفك ويشفع قاضيا مال انت قيامه مركاسي قابك يشفع قاضيا ما نبي ينوقي حيو عليه الصلاة والسلام يقول الصيام صونك وحورنا يا أي ربي يو يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه إلى ودون كاغن cuntada waa u diiday maalintiyo uu afxinaan jiro waa soomanaan jiray shahwadiisii iyo wixii uu rabayna waan ka joojiyay ilaa aniga erga kaaga ahay maanta ergadeyda u aqbalo jannadaada geli ويقول القرآن كي واحدنا إيمانيا isagoo suuratul baqara iyo aal imraan iyo ay hogaaminayaan markaas uu quraanku oranaya mana'tuhu an-nawma bil-layl habeenkii waqti badan oo kamida hurdada waan u diiday oo waa igu cibaadaysan jiray فشفعني فيه إله أنيقا إرقا كاقاه مانتا إرقا إذا إلهي وأقبل قال فيشفعاني وشفع قاضي ينبو النبي عليه الصلاة والسلام أحمد باصوصاري حديث درجيس هو حسن في صحيح الترغيب والترهيب
soonku qofka xasanaadkiisa iyo ajarkiisa ayuu aad ilaahay ugu laalaaba subxaanahu wa tacaala waatuu nebigu ahaa alle wuxuu yidhi caza wajal kullu camal ibni aadama lah camal oo dhan ina aadan isaga iskale camalkuu samaynayo ila sawm soonka mooyaane yacni waxaa looga jeedaa soonka mooyaane soonka anigaa si gaara isugu gooni yeelay soonka mooyaane fa innahu lii wa ana ajzii bih anigaa iska leh anigaana ka abaalgudaya asiyaamu junnatun soonku waa gaashaan qofka ilaahay kaga xijaabayo naarta iyo xumaha faidaa kaana yowmu sawmi axadikum marka la gaaro soonka maalinta qofkiin sooman yahay falaa yarfuth walaa yaskhab yaanu wax soonkiisa xumeeyo oo dumar iyo howlahood ku saabsan yaanu la imanin yaanu qaylqayliin buuq iyo qaylo iyo waxa hajo iska ilaaliyo fain saabahu axadun hadduu qof caayo aw qaatalahu ama la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anigu waan soomanahay waladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lakhaluufu fami saa'imi qofka soomani afkiisa naqaska ka soo baxa atyabu cinda allaahi alla agtii waa ka wanaagsan yaho waa ka udgoon yahay min riixi lmiski geedka miskiga la yidhaahdo udgoonkiisa oo waxa weeyaan dee calooshan maran marka calooshu saa isu laba rogto oo ay marantao cunna ku jirin uuskii caloosha ku jiray markuu marba doc isu rogo waxoogaa hah ah ayaa qofka afkiisa ka imanaysa marka afkaas waxaa ka imanaya waxa weeye qofka bishimihiisa jiilka fuulaya jiilkaa bishimaha ka fuulaya iyo naqaska yar ee ka imanaya calooshiisa ilaahay agtii miskiga waa ka udgoon badan yahay lisaa'imi farxataani qofka soomani laba farxadood buu leeyahay yafraxuhumaa uu ku farxo idaa aftara markuu afuro farixa bifitrihi afurkiisuu ku farxayaa waidaa laqiya rabbahu rabbigii markuu la kulmana farixa bisawmihi soonkiisuu ku farxaya oo ilaahay markuu dee la kulmo la abaal marinayana waa ku farxaya markii kalena waxa weeye soonkiisii marka maanta cadceedu u dhacdo waa ku farxaya xadiiska riwaayadkiisa waxaa ka mid ah riwaayat albukhaari yatruku طacaamahu wa sharaabahu qofkaasi wuxuu ka tegayaa cuntadii iyo cabbitaankii min ajli aniga daraadday asiyaamu lii soonka anaa iska leh wa ana ajzii bihi anigaana abaalinaya waalxasanatu bicashri amhaaliha hal shay oo wanaaga qofka la yimaada 10 u dhiganta alla siinaya subxaanahu wa tacaala xadiid kale wuxuu ahaa kullu camali bni aadama yudaacaf camal kastoo bini aadamka sameeyo ilaahay waa u laalaabaa alxasanatu bicashri amhaaliha halka wanaagi qofku uu sameeyo 10 la mida alla uga dhiga ilaa 700 ضicfin ilaa 700 oo laalaab laga gaaro qaala allahu tacaala ila sawma ilaahay wuxuu yidhi soonka mooyaane acmaasha inta kale mid markaad samayso hal shay oo xasanaad ah ilaahay 10 buu kaaga dhigaya 10kiiba haddana 700 alla kuugu dhufanaya waa kaaga sii badinaya soonka mooyaane fa innahu lii wa ana ajzii bih anigaa iska leh soonku ii sugnaaday anigaana ka abaalgudaya yadacu shahwatahu wa طacaamahu min ajli qofkani cunnadiisii iyo shahwadiisii iyo wixii dumar ku saabsanaa aniga awgay buu uga tegey buu odhanaya alimaam ibni cabdilbar wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo soonka wax kaleba aan lagu sheegin ammaan waxaa ugu filan iyo wanaag iyo maamuus in ilaahay isu aaneeyey oo si gaara isu xejiyey oo uu yidhi soonka anigaa iska leh anigaana abaalmarnay acmaasha kale cibaadaadka ah marka aan la eeginba dadka mu'miniinta ah marka ay aakhiro qabuurta ka soo baxaan oo ay ilaahay la kulmayaan subxaanahu wa tacaala oo xisaabtii iyo hawshii ilaahay ugu talagalay laga oofinayo tilmaamo ayay leeyihiin lagu garanayo marka ay yimaadaan dadka kale aan mu'miniinta ahayn kaga soocan yihiin waxaa ka mida maalan tilmaamahooda dadkii ahlu salaadka ahaa adduunka markay joogeen ee tukan jiray waxay iman doonaan iyagoo xubnihii waysadu ay wirwidhayso oo nuur iyo dhalaal ka baxayo wejigii iyo gacmihii iyo lugihii iyo madaxii ay masixi jireen ayay aakhiro imanayaan oo nebigu kaga garan doonaa ummaddiisa ummadaha kale calaamadda waysada
sida adduunkuba farqi ugu dhaxeeyo iyaga iyo ummadaha kale waxa kale oo kamid ah calaamadahooda lagu garan doono soonta ay adduunka soomaan raadkiisana aakhiro waa lagu garan doonaa oo waxa iman doonaan intii adduunka soomi jirtay ee ilaahay soonkii faralka ahaa uu ku lahaa aanu ku qalloobin iyagoo caafimaad qaba aan soon ilaahay ku lahayn oo soon wixii soo maray ilaa maalintay qaan gaareen ilaa inta ilaahay la kulmayeen iyagoo aan soon lagu lahayn geeriyooday oo god galay iyagoo waxa iman doonaan afkooda udayga iyo udgoonka ka soo baxaya wax la mid ah aan la arag aad afkooda u udgayo bay iman doonaan oo ay ummadaha kale kaga garan doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga sooci doonaa waayo nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam atyabu min riixi lmiski riixulmiskiga baalka udgoonay miskiga la yidhaahdo yani udgoonkiisa wax ka sii udgoon weeyaan waxa afkooda ka soo baxaya xilligaa maalinta ay sooman yihiin abaalgudkooda marka kaasuu noqonaya lakhaluufu famu saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski waa astaan weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira u tusi doono qofka sooman farxadaha uu leeyahay waa farxad waa markuu afurayo maanta oo dhan wixii ilaahay ka celiyey ee xalaasha ahaa ee wax la cuno iyo wax la cabo iyo hadduu reer leeyahay xaaskiisii iyo wixii la mida ah markii loo fasaxay naftu wax loo diiday oo saacado badan loo diidanaa marka loo fasaxo aad bay ugu xiisa iyo hilow qabtaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu u fasaxo oontii iyo waxyaabihii laga xanibay way ku farxaysaa boqolkiiba boqol ilaahay amarkiisina inay gudatay markuu amray oo yidhi wax ma cuni kartid waxna ma cabbi kartid laga bilaabo salaada subax markay dhalato ilaa inta cadceedu ka dhacayso markay cadceedu dhacdayna loo fasaxay naftu aad bay ugu farxaysaa farxadda labaadna waxa weeye farxadda ilaahay aakhiro subxaanahu wa tacaala marka mu'minku la kulmo ilaahay agtiisa waxa u yaalla ee soontiisii abaalgudkeedii iyo thawaabkeedii alla u kaydiyey maalinta loo dhiibi doono oo aad baahi weyn ugu qabo taana waa ku farxaya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah huwa khayran waacdama ajra waa aayadihii aynu saaka salaada subax ku tukannay rakacaddii labaad bay ka mid ahayd ilaahay uu leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum nafihiinna waxaad u hormarsataan oo min khayrin khayr una tajiduuhu waad helaysaan cinda allaahi ilaahay agtii baad ka helaysaan huwa khayran waacdama ajra isagoo haddii alla idmaayo khayrkiisa iyo abaalkiisa iyo ajarkiisu weyninkiisa waa cajab leeya baad heli doontaan mar kale alle waatuu leeyahay yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara maalintaas qiyaamo waa maalinta naf waliba wixii khayri ay shaqaysatay isagoo diyaar ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keeni doonaa qiyaamaha soonku wuxuu kor u qaadaa darajaadka iyo xasanaadka qofka ayuu kor u qaadaya waayo alle wuxuuba leeyahay anaa iskale anigaana abaal gudaya acmaasha kale waa la sheegay abaalgudkooda iyo ajarkooda inuu laalaab yahay laakiin soontu waxa weeye waxaa ajarkeedu yahay bikayri xisaabin abaalkeeda waa xisaab la'aan sidaa awgeed baa cibaadadu mararka qaarkood meesha lagu qabanayo iyo xilliga la qabanayo baa waxa uu keeni karaa abaalgudku inuu weynaado hadda maalan xaramka oo kale qofkii taga maka muxuu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam xaramka maka qofkii taga ee salaad ku tukadaa salaadiisu waxay u dhigmaysaa halkii salaadba 100,000 oo salaadood bay u dhigantaa xaramkii makuu tegey duhur buu ku tukadaa ama casar ama maqrib ama cishi ama subax 100,000 oo salaadood bay u dhigmaysaa halkii salaad ee uu tukado 5 salaadood hadduu ku tukado waa 500,000 oo salaadood bay u dhigmaysaa marka makaanka iyo meesha uu tegey ayaa fadligan iska leh xag kale nebigu sal allahu alayh waali wasalam waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mida rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu tilmaamay qof dumara baa wuxuu ku yidhi heblaayoy maxaad xajka noola xajin weyday markaas waxay tihi rasuulka ilaahayow ninkayga ayaa xajkii qabtayoo
laba awr baanu lahayno awrna xajku ku qabtay oo wuu gaadiidsaday awrkii kalena beer baanu qodanaayo beertaanu ceel baa noogu yaallo biyaha ayuu noo soo jiidaayo beertaanu ku waraabsanaa markaasaa nabigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi cumro ramadaanta qofku uu cumraysto waxa uu la mid yahay xaj aniga uu ila xajiyey oo kale marka cumradu iyadoo fadli badan leh haddana ramadaan markay ku beeganto waqtigaa barakaysan ee ramadaanta hadday ku beeganto waxa weeye ajarkeedu xaj bay u dhigmaysaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa xagga ajarka iyo xasanaadka ajarkaasi xaj buu u dhigmayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaabaha muhimka uu ku leeyahay soonka waxaa ka mid a ilaahay qofka sooman ducadiisa ma celiyo wuu aqbalaa saa'imka ducadiisa ilaahay waa aqbalaya saacadaha muhimka qofku inuu ilaashado la rabo waxaa ka mid a afurada ka hor ilaahay aad u bari subxaanahu wa tacaala marka afurku soo dhow yahay marka aad afurtana ilaahay aad u bari subxaanahu wa tacaala afuradaas dabadeed 3 dacawaatin mustajaabaat 3 duco ilaahay iyo 3 alla bari alle waa aqbalaya waa ajiiba dacwatu saa'im qof sooman ducadii wa dacwatu almadluumi mid la dulmiyey kii dulmiyey habaarka uu habaaro wa dacwatu almusaafiri qof safray oo sadcaala ducadiisa ilaahay waa aqbalaa haddii socodkiisu aanu ahayn socod xaaraan ah laakiin socod ama dantiisa adduunyo ama cibaado u safray hadduu yahay waa kaa weeyaan sidaa ogeed baa nebigu wuxuu leeyahay 3 laa turaddu dacwatuhum waa xadiis kale 3 ilaahay alla barigooda iyo ducadooda ma celiyo asaa'imu xataa yaftur qofka sooman ilaa uu afuro intaa uu sooman yahay ducadiisa waa mustajaabo marka uu afurayna ducadiisa waa mustajaabo walimaamu alcaadil nin ummadda madax u hogaaminayo caadila wa dacwatu almadluumi qof la dulmiya habaarkiisa ayuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa marka in ilaahay aad u barido oo dan adduunya dan aakhiraad leedahay ilaahayna aad u barido subxaanahu wa tacaala khaasatan habeenadaa loo filayo 10ka dambe oo kale inay ku jiro laylatulqadarku inaad ilaahay aad u barido subxaanahu wa tacaala waxyaabaha fadligiisa ina tusaya waxaa ka mid a alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u dembi dhaafaa malaa'igtuna u ducaysaa dadka suxuurta ramadaanta oo suxuur la'aan aan ku seexan suxuurtuna waa waxa la cuno habeenka niskiisa dambe nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ina allaha wa malaa'ikatahu alle subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisu yusalluuna cala almutasaxiriin waxa tasaxariin mutasaxariin يعني waxa alle subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisu ammaanaan oo alle u dembi dhaafaa kuwa suxuurta uu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid kale wuxuu ahaa laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadku khayr ka tegi maayaan inay khayr ku sugan yihiin ka suuli maayaan inta ay afuradana dedejinayaan suxuurtana dib u dhigayaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soonta xilliga haddii ay kaliil ku soo beeganto qoraxdu aad u kulushahay oo qofku intuu soomo aad u haraado aad u kululaado waxa weeye ajarkiisu aad buu u badnaanaya wuxuu leeyahay cabdullaahi ibni cabbaas xadiidka saxiixa ah xasanka ah ee imaamu albazaar uu soo saaray saxiix tarqiibna uu ku keenaya mundiri rasuulka sala allahu alayh waali wasalam baa wuxuu diray abaa muusa alashcari ninka la yidhaahdo waa cabdullaahi ibnu qays buu diray ciidan colgaadma ah ayuu ku saaray oo isagu oday u yahay فبينما هم كذلك iyagoo arrinkoodu caynkaa yahay oo badda ku safray qad rafacuu الshiraaca fii laylatin mudlima iyagoo intay baddi ku safreen ee doonyaha waaga hor mishiinadan ma jirin shiraacaasaa loo xidhi jirayoo kolba dabeeshu dhinacay u socotaa loo safri jiray shiraacii iyagoo kor u qaaday habeenkuna gudcur yahay baddana ay ku jiraan id haatifun fawqahum yahtif mise cid baa dushooda ka dhawaaqaysa yaa ahla safiina waryaaree dadka doonnida watow qifuu joogsada wariseera taaga bal jooga qifuu joogsada ukhbirukum biqadaa'in qadaahu allaahu calaa nafsih waxaan idinka warramayaa xakun iyo qada ilaahay naftiisa isagu uu ku guddoonshay faqaala abuu muusa akhbirnaa in kunta mukhbira war noo warran haddaad tahay mid warramaya qaala wuxuu ina allaha tabaaraka wa tacaala
إلهي سبحانه وتعالى قضى على نفسه نفتي سوحو كحكم وبمعنى يسوي سساري أو عيد كلفتي آني تشيلين لكن إحسان إيو سمافل إيو ترالك أدمي سو تريو حلكا ويسوي سساري وحوي أن من أعطش نفسه له في يوم سائف قفك نفتي سأل درتي أهرادية أو قاتشية أو الصومة مال كلل سقاه الله يوم العطش إلهي وحو ورابين دونا مالين تهرادك يا آخرة يا قيامها اللي تشوقوا أيها الرادين دونا أو مركا مالين دي صونتم مركا قاركوت كليل بكوسو بيك مكرتا سيدا بني آدم كده تشوقا كو حسابي هذا إنكم ما كانوا جوقا إنو تشوقنا هذا حسابنا إنو رمضان تو كليل بكو بيغانتا قياستا مركا قرح ذا كلول قفكي كو صوما وكو هرادا وكو قاتشودا إلهي سبحانه وتعالى مالين تقيامه قرح ذا هل كان لكيني ميل ليسو سو جرسيني ميل كاسما ميل كي متر كأهابا هل كي ميل وهل كيلومتر يبط مكاسا لو جيدا أما كوني شنبغلو متر مية سو جرسان دونتا مسوحا لو جيدا قدر ميل با لو جيدا وميل كوحا ليدا قريقا يري مدوي لغو اندكوشا ليدا اندكوشا كو دحجيرا وحيرا انت عليك دي intaasay soo jirsan doontaa mase ilaa 1500 mitir bay qorraxdu soo jirsan doontaa taqriiban ilaahay baa garanay markay qorraxdu soo dhawaado ee aad loo kulul yahay qofkii ilaahay dartii kaliisha iyo kulaylka gaajooday oo soomay ilaahay wuxuu waraabin doonaa maalinta dadka wax cabaya ay yar yihiin waxa xadiis kale ku soo marnayo albaab jannada ku yaalo rayaana laga gelinaya markii albaabka inta loo dhawaaqo la dareeriyo intii soomi jirtay lagu xareeyo ay ku hoydaan oo galaan oo cid soomi jirto dibadda taagani aanay jirin waa loo soo xidhaya waxa ugu horeeya ee lagu sooriyeeyo la cabsiyo waxay noqonayaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam jannatu adnin jannada la yiraahdo biyo qabow oo laga keenay ba ilaahay ka waraabinaya subhanahu wa ta'ala biyaha markay cabaan dhuunta iyo caloosh iyo uurku waa u qaboobayaan dibna u haraadi maayaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ilaahay kuwa kacaba allah inaga dhigay meesha ilaahay ku sooriyeeyo soontana allah inoo sakhiro allah inoo fudaydiyo maxaad u malaynaysaa marka kii caafimaadka qabay ee isagu saa u sooma balkii xanuunsanayay ka war qofkii xanuunsanayay ee midalan sonkorba qabay ee haddana iskhasbayay soomayay ka war ajarkiisu soo kama sii cusla markaad kii xanuunada kale qabay maxaad u malaynaysaa ee dadka qabo oo kale iska soomayay adkaysanayay waxay mar walba maarad ajarku waa sii badnaanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qofka uu siinayo sida awgeeda waxay keenaysaa qofku ilaahay inuu badbaadiyo mucaad ibn jabal saxaabiga la yiraahdo nin dhalinyaro ah oo dhalinyarnimana waa ku dhinto isagoo dhowr 30 jir u dhintay nin sheekh oo caalimana uu ahaa mucaad ibn jabal oo saxaabadii nabiga kamid ah sallallahu alayhi wasallam markuu geeriyoonay ayaa wuxuu dareemay xanuun baa ku dhacay isagoo bilaad shaam jooga deegaankaas xanuun baa ku habsaday la yiraahdo طاعون العمواس ayaa ku habsaday dadka ku dhacay aad bay saxaabadu iyo rag badan oo taabiciin ugu dhamaadeen xanuunkaas iyo ummadii meesha deganeed marka mucaad ibn jabal maalmuu yara xanuunsanay waa jiifay markaasa goor habeenkii niskii dambe ah baa wuxuu dareemay malaha naftu waa ka dhowdahay buu isiri xilligay bixi lahayd qiyaas abu dareemay markaasa wuxuu yiri marhaban bil mawtin soo dhawow mawdkiyo iyo geeridii soo dhawow qof booqashan cid booqashan noogu maqan baad ahayd qof cid naga maqan oo na soo booqatay ayaad ahayd waa ku sugaynay soo dhawow xabiibun jaa ala faaqa midaanu jecel lahay baa tahay oo baahi weyn u qabnay inuu noo imanayana aanu filaynay mawdkiyo soo dhawow markaasuu ilaahay bariyo gacmaha kor u taagay riwaayadka qaarkood waxay sheegaan raggii la joogay wuxuu ku yiri bal waxaad eegtaan dibadda u baxo oo salaadii subax inay dhalatay iyo in kale ii eega marka isagu de ma kici karo in tabaansan yahay markaasay dibadda u soo baxeen waa eegeen markaasay weli salaadii subax ma dhalan laakiin waqtigu waa dhow yahay iska aamus waxoogaa haduu dhinaca dhulka ku hayay ayaa wuxuu yiri ordo bal noqdo oo mar kale eega in salaadii subax dhalatay
markaasay yiraahdeen ma dhalan salaadii subax laakiin waqtigii waa dhow yahay iska tabcaansan yahay uu istighfaarsanaya marka astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi istighfaarsanaya marka waana tabcaansan yahay markii dambe ee saddexaad buu unduru hal asbaha as-sabah warbal eega waagi ma bariyay qaaluu la ba'du ma wili waagi ma bariyin markaasuu ilaahay bariyay subhanahu wa ta'ala ilaahay buu bariyay marka ilaahay wuxuu ku bariyaa markuu caafimaadka qabay ee talinayay ee talaabsanayay ee aan meelna laga haynin ee aan intaanu firaashka ku soo ururin oo xanuunku haleelin oo geeridu ku soo dhawaan intii hore bad qabay adduunkiisa socday sidii uu ahaa ee noloshiisu u habaysnayd haday cibaadad tahay iyo haday dadaal tahay iyo haday diin tahay ayuu ilaahay ku bariyaa marka Allahumma kuntu akhafuka ilaahayow waxaan ahaa adoonka cabsada markaan caagahayga ku socday caafimaad qabe ee dunidayda dadka caadiga kamid aha ilaahu waad og tahay inaan ahaa adoonka cabsada fa ana al-yawma arjuuka anigu maanta waa ku rajaynaya ilaahayow inaan ka baqi jiray waad iga warhaysaa markaan de qofka caadiga caafimaadka qaba aha waa jilicsanahay waad ii jeedaa firaashkii mowdkaan saarnay Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya لطول البقاء فيها ولا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار إله وادي أكته نين أدون شعل إنانا نهين إنان اسكن وراد أدون يدا دحم الشاحو نين عين كاسو شعل إنانا هين وادي أكته نين أدون يدا حول بدن إنو طبعو السندوين يبيرو عيل البدن قضو دار بدن لسو دوني كلا رغو إنانا أهين نين عين كاسو شعل وادي أكتهي ولكن لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات لكن وادي قور هيسا إن أن سومي تشري قرحدو آدو كلول وكليشة يعد عيدو هل كان لسوسو تشوشي إن أن هراد يقاتشد درن كوغو سومي تشري انتا سو ساعدوت وادي أكته هبينك انتا سو ساعدوت إن أن صلاة أتاقنان تشري مرارك قاركود iyadoo qabowgu wax xamili kara aanay jirin salaatu leelku ugu taagnaan jiray waadi ogtahay ilaahayo wa muzahamati ulama'i birrukab fi halaq adh-dhikr meesha culimadu joogto diinta lagu hayo inaanan ka maqnaan jirin oo soo fariisan jiray oo ragayga duc ka xiriirsan jiray cilmiga dhageysan jiray diinta ka shaqayn jiray dadka diinta u sheegi jiray wax bari jiray khayrka faafin jiray ماشي خير لغو شيغيانا فريسان جيري علمي راعان جيري إلهو وادي أكته ما أنت وادي أركتا فراشكي غيريدان سارناي وان شلعساناي نفتيدو وقبو اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار إلهو وحان كامي قنقليا هبين ولي فجر كي صلاة الصبح مدلان إنان هبين لماذا قوه نسكا دنبي وأرورتينا قد نار اللي يقوهو من إلهو كامي قنقليا marka waxa way saasan u dadaali jiray maalinta intaan noolaa waan cabsan jiray waan baqan jiray waan ka baqi jiray waan amal falan jiray maanta waa ku rajaynaya waa jilicsanahay naxariistaada ilaahu rajaynaya ilaahu ay cadaabin ilaahu jannee ban ilaahu ku weydiisanaya subhanahu wa ta'ala waxay tusinaysaa marka in qofka muslimka intuu caafimaad qabo ee xoogiisa iyo aqligiisa iyo awoodiisa iyo dadnimadiisu ay taam tahay ee aan lagu soo xaadirin inuu shaqaysto oo amal fasho oo ilaahay xaqiisa si ugu dhawaada ku dadaalo ilaahay baa badbaadinayo samata bixinayo amalkiisii wanaagsana ba ilaahay ugu gabagabeynaya khayr laakiin markaad caafimaadka qabto hadii afkaaga laga baxsan waayo oo caafimaadku ku siro oo dadka cid doonta caayayso maagayso haday tahay qabyaalad iyo haday tahay aflagaado iyo haday tahay noocay ku tahay dadka afkaaga kala xishoonaynin oo aad maxaan ku raaf ficilka iyo isku dirka iyo xasarada iyo xumaha aad ka shaqaynayso oo cibaadadii aad kullidato shantii salaadood galab kugu yihiin laga yaabo duhurka iyo inaad soo gaargaadho adoo maqaaxiya suuqa ka dhowdhow salaad subax sariirta agteeda hadaad nin fiican batay ku tukato ama 6 iyo 7 aad tukato casarka aad iska seexato shanta iyo meelaha iska tukato cishaha maqribka masaajid ku tukato saad maqaaxiya uga sheekeynayso
كوبيا طبعا كمركز هو تقولي عشاء كتكت أما أذن سلادة بتكن قرآن كي بعض آخرين والله جاي ومالين لبوا صدح عفر أسبوع أنتوا كصومر على القرآن بعض آخرين وردي تسبيح له يرتاي يا هدو كوب حسن دونتا مركز سريرت فوش ميتك سادي يلي دونتا مالين تاسال لقوي يا با مركز وحا أنت تحوق قبتي أتكدح شقين يسي حني كل حولا قيسي مالين تاسد ولاق ميسا مركز أديقنا مركزان توحيد كييو بل وهليشينين إلى مركز نوليد بعد واحد هيد قف طبعاً قف ويسكون حجرها بعد هيد أو الدون سكون ولاقي هذا هيد لو كرسين ما يمركز توحيدك وحي أضبط نيت حوق جاجي ودادي عقلي جاجي أتجلسي أيات كتير بيسا أو كهاد ليسا سمع جديد مركز توحيدك لو قبته لو سولنسين مايو واي إن لو سولنسين واد متيسط مركز ما أنت عافمات قبته متيسط إن خاتمه في عن لغسيه هداد ربتد إن متيسط إن خاتمه في عن إلا إفي آخر إلهي باهيا أدونك سوى عن إلهي نكاغا أم ببحيه هداد ربت سوى عن النولو أنت النوش عافمات قبت توصل داي سوى عن النولو مؤمن مير قبا نقو هديك لمالين تاسا وركا وصوبحي دونا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب